فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا. السلام عليكم. waxaan ahay qaasim maxamed ku soo dhawow muuqaal cusub. waxyaabaha ugu waaweyn ee nafteenna ka reeba inay hore u socod yeelato waxaa ka mid ah wixii tagay. ka fikirka wixii tagay waxay kaa mashquulinaysaa taaganta maanta, waxay kugu abuuraysaa rajo xumo iyo walwal aan dhammaad lahayn. waxaad arki weynaysaa nimcooyinka uu Allah hortaada dhigay adigoo ka fikirsan hal dhacdo oo xanuujisay naftaada. sidaasi darteed ayaan ku leeyahay ka xuray naftaada ka fikirka wixii tagay oo xasuusnaa wixii kugu dhacay sinna kuguma dhaafeen, waayo rabbigaaga ayaa go'aamiyey. tagtadaadii waa wax ka baro, taagantana ka faa'iidayso, tan soo socotana u diyaargarow, rabbigaagana u tala saaro. waxa soo socda mustaqbalkaaga maamulkiisa kuma jiro gacantaada ama gacan bini aadan, balse waxa uu ku jiraa Allaha maaliga ah ee maamulo adduun iyo aakhiraba. ka walwalka maxaa dhici doona, siday wax u dhici doonaan, siday noqon doontaa arrintu, intaba go'aankooda kuma jiraan gacan bini aadan, balse waxay ku jiraan inta wax qorshaysa midka ugu qorshaha wanaagsan oo ah Alla weyne. ku kalsoonow isaga oo talada u dhiibo isaga, waxaadna ka filataa khayr iyo nimco. midna xasuusnow, ma jiro qof kaaga kalgacayl badan Allaha ku abuurtay adiga, xitaa waalidkaaga kalgacaylkooda isaga ayaa kaaga kalgacayl badan, waayo Alla waa raxiim naxariis badan, mana hoojiyo qofkii talada u dhiibta, kana fisha khayr, waayo Alla hadaladiisa macaan waxaa ka mid ah aniga waxaan u ahay addoonkayga sida uu iga malaysto. ugu dambayn, inaad ka xurayso naftaada ka fikirka wixii tagay iyo waxa soo socda ayaa dib u soo celin doonta dhoola caddayntii wejigaaga qurxoonaa, furfurnaantii lagugu yaqaanay, iyo ku samirka go'aankii uu kuu gaaray rabbigaaga. hagaag inta aan goordhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay naftaada ma celin karto waxa ku dhacaya, balse waxay awooddaa inay si wanaagsan uga falceliso dhacdooyinka nolosha, kuna qaabisho samir iyo dulqaad. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.